أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد مدحونا جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء وزارة حقيقة صاحبه إذا كان يقفل بمناسبة مقام كفر وحارة وأنا كسلامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أقول فرحسنا الشركة ما أنت iyo mawduuca lagaga hadlayo iyo muhiimadda uu waqtigan maanta u leeyahay ma ku talagelino waxay ahayd markaan shirkii isugu nimid baa war shirkaas xidhmaya iyo salaad wax walba ka horeyso horta isaga ina geeya sababtoo isaga maanta xadiidu shughul saaca isaga inaan istaariifiyo waa qaniin aan taariif dadka inta badan culimadana waa isnaqaanaa inaan Axmed Madoobe ahayna waa la yaqaanaa أنا أقول فرحسنا هاي شغلتها الروبو ووزيرك أرمها الدين تاه إنه هل كان أنتوا تاعي يسوون ماذا كتير الدنيا يقرأ الله وحن ربان لينك كهذا الله دين شباب دين كتوه سني أنتوا مقام كسوي استعجل من بركة إنه إلى هذا الدين تيشيء يواصلها وحقرنا يقف لبا marxaladahan soo bilowna iyo halka wax ka soo bilownay 2 sano iyo 8 bilood anoo diin u xiran oo Mareykan iyo Itoobiya u xiran yaa waxaan soo galay xuduudka Soomaaliya iyadoo markii ka horeysay maxaakiimta aan isku dardarsanay ururadii oo dhan gaar ahaan marka niman la yiraahdo Salaaxudiin oo nimanka hadda shacabka ku haray Raas Kaamboni Ceel Garas whatever dhowr group aan ahay baan wax isku darsanay isku darsigii waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaan dooranay nin leeyahay Caraale oo hadda jaamacad Burca ka dhiga annana ay banka ah ururka aan samaysan Caraale ka ah gudoomiye ururka waa sidoo kan hadda soo بعد أزمة المحاكم أنا داوع على قبتها لوصل يسدد بلاد بالحنا إيجا ومركز صلاح الدين كي شباب كهري راس كامبوني يعان والله وحيكون شيئين إنك اسمعين أنت قبتان أيكون حكم طبعا أو مدو وحبي هشيس بيكون قلين هشيس كي قلين لح بلاد أو يتشوجين أنا قبلوا الشباب كل عقب يسوي دريجين أنا لسه واقع هيركي جلسيني markii xildhibaan baa la igu soo daayay maana gelin waan ka soo tagay xuduudka markaan dhoobley ka soo gudbay nin baa la igu soo dhiibay Cabdiqani ka wajacay lacag $10,000 Ibrahim Afaan baa ii soo dhiibay wuxuu leeyahay niyo waa Sooriyadii loo imo waxaan rabnaa maamulkii inaan kugu wareejino bacdama gudoomiyihii uu xiran yahay oo la laayahay tarxiib iyo soo dhaweyn baa la igu talagalay in la igu soo dhaweeyo ana waxa iga go'an inaan kalluumaysigayga ku noqdo barnaamijkan aan shaqo kale iska balganacsi galo buuqana aan iska daayo Kismaayaan imid guddi baa la ii soo saaray qoladii Raas Kaamboni caan oo la waxay dhahay waxaan doonaynaa nimankii haddaadan ururkii Raas Kaamboni ee muassaska ka ahayd aadan shaqadiisii qabanaynin inaan nimankan shariicada islaamka lagu kala xukuntaan wixii aan ku heshiinay oo dhan way ka baxeen Sheekh Muxtaar Xogaal Bukaya doodaas aan galay niman culimo aan u yeeray guddi bay ii soo saareen maanta uu dhintay waxaa mas'uul ka ah gudoomiye oo gudoomiyihii markaa gobolka u joogay oo ahaa ninkii ahaa Ibrahim Afaan waxaa ku xigay Cabdiraxmaan Macalin Nuur nin la yoon jiray hebel Ciise something like that afar qof bay ii soo saareen anna qolo kale ay la socotay 5 maalmood 3 maalmood baan fadhinay iyo 2 maalmood oo ka horeysay oo fasaxan kala galay doodanadii dheeraad waxay ku soo dhamaatay waxaan ku war Ilaahay wuxuu leeyahay haddaad shay ku doodaan oo diin sheeganaysaan kitaabka Ilaahay uu noqdo kitaabkan Ilaahay ku xukuntama jawaabta la isiiyay waxay noqotay dooda 3 maalmood iyo 2 dhexda gashay 5 maalmood socotay haddii kitaabka Ilaahay aan ku xukuntano waxaan ka hor imanaynaa manhajka xarakada qaacida shacbiyana waan luminaynaa بالله عليكم أي دين
يا برنامج الله قاضي حدان قاضنا واحد كهذا ليسو وان كتابك إلهي كو حقن تنو وحان كهري مننا منهجك معني والدستور كأورك أوليه وحان الله مننا تاجرات ذاتك وحي عن الشيء يا نينك انت ديكو شيء جاي ما انت هالشيء تاسان كو غلطين وحا إلهي وجبار نينكي إبراهيم أفغان وشيخ مطارو محل قدلي ما كلمة ده واحد بدل به واحد يسكو قبتين سو نفس الكلمة ماين إبراهيم أفغان أريجي أنا يقولي ديجي سلقوا بنايستبا ديجي وكو بنايستبا يسجل قدلي لفت الكيس صوته مصالح يلا رواين الحقيقية واحد دين لينا ما شفت مصالح بالغها الله يعني ما أنت نيك علبة اللي تشوجا وعلي يا عمر يا حسن يا فرح أنا كريه هل العلماء ما أنت الدين كله تشوجا ما شفت واحد كله تشوجا عبسي يدد مصالح اقتصادية لأن ما كان ضرائب بقطان حواليه بقطان وحرب بنايستين أنت أسأل يقول تشوجا لا بحال أنا لو قدون أما علماء النقطة أنا قد قالك عن شباب لقلي سلطنة وما سوقلين سياسة وما سوقلين إن المدحوين إلا فضل عن النقطة أوتي يشوف مقلين والله إلهي درتي وحنا سوقلين إن الله دقالهم وأن كتشوابه حدي عن كتابك إلهي كوكلا بحنه وحنلو منه إن قاعدة شعبية منهج حركاتنا وانكوري منه كلمة دازنتي لكت يا ما أنت مسؤوليتي ولا تشوفين شركة مهمة دولية هاي وانو ورنا ما كان الدين كما هالليان كوا أنا قانون عامها أو دوابكر كان أنا دورة أساسية سينما ما أنت ومليونير قاركودنا يكون انتين حقيقة كانين وحنا كشغالين أنوامه مصالحي حوالها لقرتها ما راح يجا لا يقبض بلدي بقول نقض فسق كان بوني ما نقبضني وحن نقول عاجن هوانك الله وتو يحشيش كلا يقول وراه محي أمريكا قبلها هوانك حقول جيه ولا الماشي أي دين وراه أنا نوع حن كتير أنا وحن ما أنا نقول دين بنكهليني أخلاق بنكهليني قيم بندسيني ده دين لما نوعين وراه أنت بحيسوتي وبرشكتي ولي بقعموين بدنو كلا كتيران باش هندي بهالله أقول نقول إننا محاينا لو قدون كوا عن قعنت كوهينه أخلاق ذو أنا جاتينه لقن كود أنا جاتينه ما حيوقن أنا جاتينه بالود عن كير علينا صوت محاول تبرير لو وصل ميريا لبض قل دليرنا وضنية يوم أنت يسكت من نقدان ولا بدو الدين تكود التجار أو فسقي وحمان تمال لغته كل جل محبين أو تريسه إنه الدولة دول عن دين كير علينا ودولة دول عن دقن كير علينا أو واحد كينيا إن أنتوا نيك لو دليل شذا ولا نن عامة لو دليل شذا ولا سنة يالنا كان يالنا كان كقوا لا تصير نقط معنا إنه ما صمينش وحن هذا بقادين هي شعب وحن هو فولكانو هذو بريش الكوباتو قرحوا ويمانية شعب كمان هو قرح سيء درين باكر عين سووا ولا تجن وحاجتي علقي إنجليزي وطلياني يودك كوباسين كذي قاعد يدو 50 سكيو وحاجة تموت فرق تسود لورنج أما ديفاين رول قيبي وحكم ما أنت واحد كتير هذا والله ذاك الشعب كعية وحيلين ريهبل وريهبل الله صعد دولة الله صعد أما الريهبل إذا كده جماعة يعني هذا أما ما أنت أنا وحاسة كتير يعني والنظرية دي جميسية وأوحي عن 60 سكيو 50 سكيو كجذبني يا كش هذا يدير كذا ما ذاك يسكت الراعي يا ما أنت قبائل كسود الراعي يا سميني dadka aynu garab istaagno shirarkan oo kale hal la joogtay madaxda qaranku way joogtaa dadka aan u sheegno maanta wadada la qaado inay tahay sax horumar iyo ha gaareen nolol war faleeba aan u geeyay dad kaloora ku hayeen tii la jeexjeexada lagu daadiyo biyaha oo leen murtadiin baa idin soo dirtay iyaguna intay lacag soo dirsadaan bay hoosta ka gadanayaan oo qaadanayaan shacabkana way u diidayaan nolol ma taalo war culimooy waxba hoosta ha farorsanin indhaha hoose u rogina dareen aan jirin ha muujinina
fulinimada iska daaya banaanka imaada war ganacsatay dadka ha ku qaaliyeynina waxaanaad bixinaysaan hal naf baan leedahay waan diiday oo waxba ha siinin oo waxaad ogaataan shilinka aad bixiso sababa wixii ku dhacay amaam Allah ilaahay inuu wax kaa weydiin doono oo kugu soo noqon doonto oo reerkaaga ay geli doonto waxaad bixisay adiga ay dib kugu soo noqon doonto waxwaal war dawladday warka hoose inta iska daysaan iyo mujaamalada aan intaan si dhaba u istaagno dadkaana dagaalkiisa dadkaan inagu horgalno oo inagu yeenaan cabsanin inagu aan liidka qaadano oo barnaamijkii galno waxyaalaha annaga qiyaamta iyo akhlaaqiyaadka wax ka dhibaya ciidamada iyo cid walba ay ku jirtaan aan tallaabo ka qaadno aad baad mahadsantihiin salaamu aad buu u mahadsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku hadlayay magaca madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo munaasabada maanta inala jooga runtii maanta waa maalin weyn munaasabada heer gabagaba ayay ku dhowdahay waxaan filayaa munaasabad aan xiriiri ka noqdo munaasabad aan ka qayb galo tii igu qiimaha badneed waxaan uga mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo waafajiyay madaxda qaranka kuwii dowlad goboleedyada oo mar qura wara fadhiya inaan maaragtay nasiib u yeesho inaan xiriiri aan ka noqdo tan waxaan ku darsan doonaa CV-ga insha Allah anoo mustaqbalka wasiir raadinay haddaan imaado yaan leeyahay war adigu maxaad ahayd mudane ra'iisul wasaare war faafinta la igu taaka insha Allah aad u mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa daruur soo hilaacdiyo